booliiska deegaanada Inland ee dalka Norway ayaa lagu soo waramayaa in nin dhaawac culus qaba ay ka soo qaadeen bartamaha mid ka mid ah wadooyinka ku yaala degmada Guvik ee dalka Norway. Ninkan ayaa lagu soo waramayaa in ay da'diisu tahay 40, waxaana lagu soo waramayaa in la arkay isaga oo qaba dhaawac culus wadada bartankeedana yaalo, waxaana lagu soo waramayaa in loo qaaday isbitaalka magaalada Guvik halkaasoo lagu dabiibayay layskuna dayay in loogu fidiyo caawinaad degdeg ah oo u baahnaa maadaama dhaawiciisu uu ahaa mid culus. Ha yeeshee waxaa lagu soo waramayaa in isbitaalka Guvik ay xaaladiisa u taag iyo tabar waayeen, taasoo keentay in diyaarad ambalaas ah oo nooca helikobtarka looga qaado isbitaalka Guvik isagoo la geeyay isbitaalka magaalada Oslo ee caasimada wadanka Norway, halkaasoo hadda lagula tacaalayo. Ninkan ayaa lagu soo waramayaa in dhibka iyo dhaawaca soo gaaray ay u badan tahay in loogu geystay dagaal gacan ka hadal ah ama dhibaatayn isaga loo dan lahaa, waxayna boolisku sheegeen in ay hadda baaritaano sameynayaan, inkastoo ay sheegeen inaysan hayn wax cadeymo ah oo muujinayo waxa dhacay, sida ay u dhaceen iyo cidda geysatay intaba, iyagoo codsaday in ay la soo xiriiraan cid kastoo wax ka ogeyd ama goobjoog u ahayd sida ninkan loo dhaawacay dhibkan culusna loogu geystay. Taliyaha howlgalkan lagu soo qaaday ninkan Paul Yestervag ayaa sheegay in ay baaritaano hadda hayaan haddii ay jiraan kaamirooyin qarsoon oo ku yaala goobta ninkan lagu dhibaateeyey ama lasoo dhigay dhaawiciisa culus, wuxuuna sheegay in boolisku ay hadda baaritaano wadaan. Sidoo kale taliyaha howlgalada booliska deegaanada Inland ee dalka Norway Hagen Lovsted ayaa sheegay in ay hadda baaritaan xoogan wadaan, inkastoo uu sheegay inaysan jirin cid ay u soo qabteen. Ha yeeshee mala awaalka iyo sida ay malaynayaanba ay tahay in ninkan dhibka iyo dhaawac culus loo geystay oo isaga loo dan lahaa in la dhibaateeyo, wuxuuna sheegay in ay booliska jeclaan lahaayeen in lala soo xiriiro cid kasta oo wax ka ogeyd ama wax ka aragta ama xitaa wax uun ku kordhi karto kiiskan si ay baaritaanada ay hadda hayaan ay wax ugu soo kordhiyaan. Wuxuuna sheegay in diiwaanka booliska ay arrintan u diiwaangelinayaan faldambiyeed dhacay, ha yeeshee baaritaankiisa ay ku guda jiraan, isaga oo sheegay in ay jiraan dad ay u wareysteen kiiskan oo aysan ilaa iyo hadda doonin booliska in ay ka hadlaan ama ay faahfaahin ka bixiyaan. Dhacdadan ayaa dadka Guvik iyo deegaanada ku xeeranba waxa ay ka muujiyeen walwal iyo walaac xoogan, maadaama qof si xun loo dhaawacay loona jirdilay lasoo dhigay mid ka mid ah bartamaha wadooyinka ku yaala deegaankaas ama degmadaasi. Halka warka kiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.